Okay, asalaamu calaykum asxaabii soo dhawaada. So waxaan rabaa wax yar in aan ku daro cashir oo cashirada business accountka business managerka kamid a. Marka cashirkan waxa waaye cashir aad muhiim u ah haddii aad macnaha business manager aadna weli furan inaad furato isku day cashirada aan soo dhaafna fiiri. Marka meeshaan hadda waxaan usoo galna waxa waaye kulley waxaad laga yaabaa weli inaad haysatid hal ad account iyo kii oo personal ad account ka ahay. Marka hadda daa fiirino Mr. Bossless ad account ka aan sameyno waaye haddii aad rabtid inaad iska xirtid meeshaan ka xiri kartaa, haddii aad rabtid inaad mid kale furtidna meeshaan ka furi kartaa. Meeshaan marka waxa waaye aad an ad account haddii aad usoo dhaweysid oo meesha qunfulka aad saartid waa arki kartaa limitkaaga ayaa gaartaa meesha ku qoran oo mid kale laguma ogola inaad furato. Marka waxaan rabnaa marka inaan sameyno see mid kale ku fura karnaa oo macnaha aan u badsan karnaa. Marka waa baxay meeshaan ayaan waxaan geliyey informationkayga adiga waxay ku saabsan weli waxay ugu qoran hal ad account ka badan laguma ogolo. Marka waxaan isku dayaynaa insha Allah tacaala in aan intan sii wadi karno sii wadno. Marka waxaan sameeyey waxaan tegey meeshaan ay qoran tahay developers.facebook.com waxaan rabaa marka in meeshaan app aan kasoo create gareeyo. Kadib marka app kasoo create gareeyo aan haddana appkaas aan inta kusoo daro kadib aan fiirino haddana wixii noola ogolyaa markaas. Si hadda meeshaan daa fiirisid emailka waa ku daray inta information aan ku diri karo meeshaan ku daray si macnaha ad account badan aan helno. Marka meeshaan daa fiirisid my apps haddaa ku dhufatid apps aan horu create gareeyaa jiro laakiin waa iska dhaafay because waxba ma sameynin inta macnaha mid cusub hadda inaan create gareeyaan rabaa create app. So waxaa ku dhufa kartaa consumer business waxaa rabtaa ku dhufa kartaa dhimala waxaan u bixinaa Mr. Bossless apps, okay, and create yourself next. So marka passwordkaaga geli Facebook ku furatay ana camal haddaa tahay oo badanaa passwordkaaga hilmaamtidna hal xaba la iska isticmaal for everything. Ana mar walba waa hilmaamaa passwordkayga. So okay, marka hadda meeshaan waxaa ku qoran Mr. Bossless apps. So just copy garee app ID-gan soo copy gareyso haddaa ku dhufatid click to copy waaye so iska copy gareysmaayo. Marka waxaan sameynaynaa hadda meesha maadaama aan joogno oo soo laabanee waxaad tegeysaa apps meesha ku qoran tahay so account ku dhufo meesha apps ku qoran tahay ku dhufo kadib waxaa fiirinaysaa markaas waxaa leedahay kan oo kale hadda haddii aad rabtid kan oo kale inaad ku dartid Mr. Bossless appkaas oo kale Mr. Bossless marka ay ku qoran tahay oo kale haddii meesha ku jiro oo mid kale aadna haysan so hadda kan Mr. Bossless kan oo kale meesha ku qoran tago kii hadda meesha ku qoranayo waa ku dhufa karaa. Marka ku dhufto app ID-giisan soo qaadanaa because hadda midaan create gareynay laakiin midkaan create gareynay ma soo saarin fahamtay. Marka waxaan sameynaa marka appkaas inaan macnaha aan ku daro so haddii aan sameyno connect ID-ga haddaan soo download aan soo copy gareynay ku dar approved because you're an admin. Okay marka haddana waxaan sameynaynaa meesha ay ku qoran tahay security center kadib waxaan fiirinaynaa business star verification meesha ku qoran tahay kadib waxaan leenahay information kana iska fiirinaysaa next. kadib waxaa fiirinaysaa meeshaas aad isleedahay waa sax ayaad ku dhufanaysaa oo addresskaaga iyo waxay ku qoran yihiin. Haddii ay wax qaldan yihiin dhib ma lahan oo waa iska dhaafi kartaa macnaha meesha haddii address una kusoo bixaynin dhib ma lahan oo meeshiisa ugu tegi kartaa. laakiin haddii wax address uu kusoo baxayo kale oo addresskaas isleedahay address saxa waaye markaas waa ku celi kartaa waxaa leedahay yes addresskaas saxa. haddii kalena waa iska dhaafi kartaa marka meeshaas amarisid faraha ka qaad inta macnaha ka helisid address iyo business iyo legal business oo saxa macnaha ma fahamtay. marka hadda waxaan sameynaynaa marka waa baxaa waxaan fiirinaa haddana ad accounts kan fiirinaa weli ad account hal xabo waaye
laakiin haddii aad waqti siisid oo macnaha hadda inta aan sameynay oo kale aad fiirisid mar kale oo beri dambe oo adiga 2 days later aad fiiriso oo kale waxaa laga yaabaa inuu kugu daro one more ad account oo macnaha ama 2 more oo 3 kaaga dhiga laga yaabaa. Marka hadda intaan sameynay enough marka waa kaasa cashirkan waxaan rabay inaan ku daro oo macnaha haddii aad rabtid in oo ad account-ku kuu bato kale macnaha 2 iyo 3 camal aad ka dhigatid. marka maadaama hadda weli uu hal yahay waxaa laga yaabaa in uu macnaha uu maalmo qaato in lagu diidana waa laga yaabaa macnaha Facebook iyo Facebook macnaha wax dad nooc kale ah waaye macnaha ma fahamta. marka haddii lagu diidana waa kaas, haddii laga yeelana waa kaas. macnaha this is all I can do dhinacayga and this is all I do haddii macnaha business aan furto oo sunucaana oo macnaha aan lahayn legal iyo waxaas aan lahayn oon registraysnayn sidaan le un sameeyaa macnaha. marka intaas la soco. marka waa kaasa insha allah cashirka meeshaan ku ekeysiinaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.